annagu hadda waxa halka isku nimid waxa weeye inaan dawladda federaalkana baaq u dirno maamulka meesha ka jirin inuu waqtigiisa dhamaado maanta 19 bisha ahayd axmedowe waqtigiisa waa u dhamaaday si kastaba ku yimaado hadda waa la xalaaleeyay axmed nin la doortay way saas yiraahdaan laakiin aniga hadda meel official lagu doortay ma jirin laakiin hadana dadku waa iska aqbaleen oo wuxuu ka mid yahay maamulada Soomaaliyeed oo sida xoog ahaa lagu sameeyay marka iyadoo sida ay jirto ayaa waxaan jecelnahay ina Axmed sidiisaba madaxweyne inuu yahay danta uu qasbtay waa aqbalnay laakiin waxaan rabnaa maadaama uu 12 sano uu joogay 12 sano hana fi sanaf intaan ka badan waa ma taqaan Axmed marka waxaan rabnaa dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa oo madaxweyne xashiq uu hormuud ka yahay waxaad moodaa xoogaa inuu gacan bidixeenayo dadka reer Jubbaland meesha degan oo san ma taqaanay in badan uu isdhigeysanayn sababtoo ay tahay wuxuu hore u balan qaaday inuu tagi doono gobolka oo ma taqaanayo arrinka uu xalin doono ma uu xalin balse laakiin nidaamku baa isii furay laakiin si wanaag dadku ma dagaalamin macnaheedu ma ahan dadka hadiisa dagaalamin in Axmed meesha looga tanaasula ma dadku wali way qabaan oo Axmed in meesha uu ma taqaanaa doorasho xalaal ah oo ma taqaanaa cid walba ha ku soo baxday oo dadku ku qanacsan yahay inuu ka soo baxo oo la qabto ayuu dadku diyaar u yihiin marka anagu madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay war 4 sano wax badan ba hadda koorna madaxweynaha ahayd Axmed Madowna waa wada taqaanaa waa istaqaanaan meelaha isla martayna waa la og yahay oo ma taqaanaa iyo meesha uga tagtay haddana waa ku soo laabato sidii oo madaxweyne ah marka adigoona u eegeen danaha khaaska ah inaad ma taqaanaa indhaweyn ku fiiriso oo aad arinta Soomaaliya oo legacy ka tagto oo ma taqaanaa inaad soo noqon doonto Allah yaclam cid og ma laha laakiin wax laga yaabaa inay kugu jirto inaad isleedahay waa soo noqonaysaa iyo ma taqaanaa hadii adaa hore u dhihi jiray ma taqaanaa cid mar la doortaa ma soo noqonayso marka anigu waxaan leeyahay madaxweynahan waxa uu baaqayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrinka Axmedowe inuu si gaar ah isku hayo in Axmed pressure lagu saaro inuu doorasho qabto in dadka deegaanka isku yimaadaan in ma taqaanaa dadka waxay ku qanacsan yihiin la dhageysto halka ma taqaanaa cid ay dooratana eeda marka ay ku qanacsanaa dadka deegaanka ayaga marka sheegay inay ku qanacsan in kale oo way garanayaan marka anigu hadalkii inta kuma sii dheeraanayo waxaan leeyahay mudane madaxweyne arrinkan hoos u dhigo si fiican oo la soco hadda waxa joogtaa magaalada Dhuusamareeb dagaal baad ciilaamisa dagaal baad ku jirtaa dagaalkaasna waa qayb kamid ah ummadda Soomaaliyeed Jubbaland waxay ka mid tahay dhulka Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka tahay marka hadii aad tiraahdo meel baan focus ka saaraya dawladnimadaada ma dhameystirmayso sida daraadeed waxaan rabaa in halkaan baaq uga jeediyo dadka dhamaan reer Jubbaland inay ma taqaanaa waxay ku amaanayeen dulqaadka faraha badan 12 sano in iska joogo aan horumar sameyn oo aan Kismaayo ka soo dhaqaaqin ma taqaanaa inta ay u dulqaadanayeen waxa inta kale oo si dheer oo raba inaan ku darsado diyaaradaha duqeynta dadka ay u geystaan magaalada Ceel la yiraahdo waxa ku dhintay ma taqaanaa dad fara badan waxa lagu dumiyay hanti fara badan waxa lagu laayay caruur iyo dumar baa lagu laayay waxaan leeyahay dadkaasna Ilaahay subhanahu wa ta'ala samar iimaan Allah ka siiyo de madaxweynaha asaga dalka madaxweynaha ka hay xasheeqay Ceel waxay ka mid tahay Soomaaliya Itoobiya Kenya kuma taale bal ma aragtay asaga inuu marka arrimahaasna dib u eego waxaan ku soo gunaanadayaa walaalayaalow anagu mar rabno cadaalad darro mar rabno dad inaan dulminano mar rabno waxaan rabnaa meesha inay doorasho ma taqaanaa daacada ka dhacdo Axmed anagu hadda si qabiil ahaan uma diidanin Axmed waa nin Soomaaliyeed waa nin deegaanka kamid ah un xukunkiisa baan nagu raagay marka waxaan rabnaa ma taqaanaa xukunka nagu raagay sida maamulada kale oo doorashada uga dhaceen oo isbedelada uga dhaceen in ma taqaanaa halkaasna isbedel uga dhaco oo ma taqaanaa dadka Soomaaliyeedna meesha wixii madow ku jireen halka Allah subhanahu wa ta'ala isku caloofiyo halkaas ay uga baxayaa in salaamaha dhawaantiin iyo waxaas waa Soomaali weeye deegaanka dad badan oo Soomaaliya degan marka waxay u baahan yihiin dadka waxa deeqa cadaalad wax kale oo deeqa ma leh marka kulli hadda waxa meesha la iskugu yimid waqtigii madaxweynaha hadda jooga Axmed Maxamed Islaam waa dhamaaday doorasho in la sameeyo oo doorashadaas ninkii ku soo baxay santuuqa uu ku guuleysto maamulka hadda ka jira Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha ka yahay dad badan baa cabasho qaba cabashadaasuna waxay ku salaysan tahay doorashooyinkii aan la aadin marka doorashooyinka hadii la aado doorasho dhici lahayd waxa laga yaabaa inay
arrintan xalismi lahayd oo dadka Soomaaliyeed qofkii ay doortaan oo ku guuleysan lahaa marka waxaanu boorinaynaa in doorasho dhacdo oo dadka Soomaaliyeed dawladnimadoodii iyo qarannimadoodii qayb ka mid ah ay xalismato oo halkaas wax laga baadi goobo meelaha qaarkood kale ciladaha ka jira gobolka Gedo hadda mar dhow hadda diyaarada Kenya baa duqeynaya oo dad ku leeynayay ciidamada Kenyaatu way baxayaan qofkii ay arkaan oo Soomaaliya waa shabaab weeye waa dilayaan waa tooganayaan labana helay meesha xataa galiyeen muddo ka bacda alfiis la helaya dawladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka hadda Muqdisho ka dhisana kama hadlo oo ma difaaco diyaaraduhu sidoo kale waa duqeeyaan joogto u duqeeyaan marka dhibahaas ayaguna way jiraan oo aad bay dib u tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan shabaab ma aha deegaankii way wada degan yihiin marka arrintaasna waa arrin laga xumaada runtii markii la fiirsho marka waxaan ku soo koobayaa warbixintayda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay madnimadooda ka shaqeeyaan iyo qarannimadooda oo baadi goobaan dawladnimadooda waa waxa iyaga laga rabo ay ku noolaan karaan oo u ah xal u ah khaas ahaan Jubbaland markii laga hadlayana dadkaas degan oo walaalaha waxa deeqi kara waxa weeye waxay heshiis ku yihiin oo wada qorteen inay isku raacaan oo ah inay doorasho galaan 4 sano mar qofkii ku soo baxana lala shaqeeyo qofkii ku soo baxa lala shaqeeyo taas baa marka muhiim ah xasan sheekh waxa loo doortay inuu dadku isku haayo madaxweynaha dawladda Soomaaliya haddana haddaa aragtid sida wuxuu sameynayo inay kaaf iyo kaldheer ay kala tahay dadka dhan aan u wada jeedo waxay ahayd inuu tago markuu Kismaayo tagayay inuu tago Gado muuse tagin marka wax mareexan u wada yaalo iyo dadka Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose u wada yaalo waa in arrin laga fikirnay ay tahay arrin hadda ninkan odayga ugu dambeeyo hadlayay in annaga aan wada tashano qofna wax nooma sameynayo heelan hogaamiyay muxuu ahaa Maxamed Sayid Aadan iyo muxuu ahaa Fartaagiyo ninkaas wax ku qabanayaan mala waa mareexan cusub la helaa marka aniga go'aankaygu wuxuu yahay wixii dadka ay yiraahdaan diyaar baan u ahay bil walba hadii la yiraahdo $100 la bixiyo diyaar baan u nahay laakiin sida hadda wax u socdaan waa in wax laga bedelaa oo dadkeena wax u qabsanaa waa anaga ugu liidana madaxweyne walba doon soo mara xataa wax noo ma qabanaya anaga marka dadka ayaga wax qabsado dadka Gada ka soo jeedo dadka Jubbooyin ka soo jeedo waa in ayaga soo tashtaan markaas bay wax noqon karaan dadkana la xisaabtami karaan yar kaftan haddaan ku soo dhawaado xaaladda la isugu yimid kulay hadda anagu isu sheegi mayno taariikh dambe iyo wax lagu noqdo iyo maxaan qabsanaa iyo ma taalo way iska cadahay waxaa jirta alamtara soo dhaaftay mar hadday alamtara soo dhaafto waxa laga ambaqaadayo cid walba carruurta garanaysa marka waxa weeye wixii waxa hadda yaala ku haboon oo annaga noo ah ma garanaysaa inaan waajibna u ah inaan wadadaas qaadno yaan isleeyahay kulley hadda anagu shucuurtanadu maalkan waxaan tusinaynaa dadka muxuu ahaayeen Soomaali tusi mayna waxaan tusinaynaa caalamka waayo Soomaalida lafteedu waa tan kula diriraysa oo colka kula waxa weeye waxaan marka tusinaynaa caalamka ayaan u sheegaynaa saan shucuurtanada waxaan ka qabno iyo dulmiga jira iyo dhibaatooyinkan yaan aan u aaminsanahay inay arrintu ku wajahan tahay haddii la rabo in wax la qabsado dad gaar ah oo special oo la iska xulo guddi ah in la samaysto oo ku wajahan arrinta ayada laakiin ay tan ku kooban tahay shucuurtanada kaliya inaan muujino maanta waxaan ka qabno bismillaahi raxmaani raxiim warmartiyeed ka soo baxay jaaliyadda Jubbaland Sweden taariikh 19 bishii 8 2023 shirka jaraa'id ee Jubbaland ee ka dhacay caasimadda Stockholm ee wadanka Sweden waxaa ka soo qayb galay jaaliyadaha ay ku midaysan yihiin qurba joogta Jubbaland
ee Soomaaliya. Dhammaan qurbo-joogta Jubbaland qodobka koowaad dhammaan qurbo-joogta Jubbaland waxay isku raaceen in la joogo xilligii isbeddelka Jubbaland lana qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah. Qodobka labaad in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha 8 2023 aysan jaaliyadaha Jubbaland aqoonsanayn ama aysan jirin wada shaqayn dhexmari karta maamulka waqtigiisu dhamaaday ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Qodobka saddexaad in doorasho lagu qabto caasimadda labaad ee Jubbaland ee magaalada Garbaharey. In ugaaska beesha sade ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ku dhawaaqo guddi ku meel gaar ah oo sii wada howlaha harsan intii la soo magacaabayo maamul rasmi ah. Qodobka shanaad in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ah la shaqeeyaan guddiga ku meel gaarka ah marka uu ugaasku soo magacaabo. Waxa loogu baaqayaa dhammaan qodobka lixaad waxa loogu baaqayaa dhammaan bulshada matalaada ku leh Jubbaland iyo jaaliyadaha qurbo-joogta ay isugu tagaan caasimadda gobolka Gado ee Garbaharey. Waxaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud laga codsanayaa inuu furo garoomada diyaaradaha ee gobolka Gado annagoo og in uu u xiran yahay awaamirta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo dana gaar ah. Waxaan dhammaan hay'adaha gargaarka ka geysto arrimaha Soomaaliya ee ay ugu horeyso beesha caalamka u sheegaynaa inaysan marnamo taageero u muujiso maamulka xilligiisu dhamaaday ee Axmed Madoobe isagoo awalba cunaqabateeyay bulshada Jubbaland Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado. Waxaan dowladda Kenya ku wargelinaynaa inay si degdeg ah u joojiso duqeymaha aan loo meeldayin ee ay ku xasuuqayso shacabka reer Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado. Qodobka 10aad waxaan ka codsanaynaa dhammaan jaaliyadaha Jubbaland ee ku sugan wadanka Soomaaliya iyo dowladaha dibadda inay garab istaagaan oo lana shaqeeyaan guddiga uu ugaasku soo magacaabi doono wabillahi tawfiiq dhamaad.